بسم الله الرحمن الرحيم ومالنا أحد إلهي أحد خير كيد هاي نسي أحد يالكلا أو بدنا عافيماد iyo bashbashi barwaaqo ah inagu gaarsiiyo markaan yaraa ilkahaygu way soo taagnaayeen fanax baan lahaa dabar yaroo cas baan lahaa markaan Yurub imi waxaa la igu yiri biro ku xidho waayo ilkaha taagtaagan ma fiicna dadka badankiisu ilkahoodu waa toos deedna waa sidaas 4 sano ayay biro igu xidhnaayeen waxa aan ogaaday waxbarashadaydii ku ogaaday waxbarashada kama hadlayo midaan iskuulka waxaan ka hadlayaa baaritaankaygii in dadka maskaxda laga gumaystay waxaan isweydiiyey kow maxaa ugu wacan ilkaha dhaadheer ma dabiici baa mise waa wax dhasha laba maxaa dadka loogu dhiirigeliyaa inay biro ku xidhaan oo ilkaha la toosiyo kow aan ku bilaabo ilkaha taagtaagan waxaa keenaa raashinka aan ku celiyo raashinkaa keena dadka waxbaara loo yaqaano muxuu ahay dhaqamada barta waxay badanka eegaan dhaqamadii hore say ahaan jireen deedna waxay ogaadeen Soomaaliya haddaan Soomaaliya xooga saaro dhaqanka Soomaalida kaliya xooga saaro in Soomaalidu ay lahaan jireen ilka toosan oo cadcad oo aan xabad suusi ku jirin maxaa dhacay marka maxaa ugu kalifay taa waxa ku kalifay in ay Soomaalidu ilka cadcad la yeelato ilka toosa yeelato ilka bilaa suusa yeelato hilib iyo caano iyo midhaha baxa xilliga guga iyo dayrta midhaha ka baxa kaymaha ka baxa ay cuni jireen kow caanuhu lafuhu dhisaya dhuuxu dhisaya ilkuhuna waa dhuux laba hilibku dadka ciyaar bay haysay marka hilibka Soomaalida Yurub joogto waa lagu tira waxa lagu yiri cholesterol baad ku dhacaysa cholesterolka waxa laga qaadaa sonkorta iyo pasta looma sheegayo iyaguna wax ma baarayaan way la yaaceen hilibku ilkuhu dhisaya ilkuhu adkaynaya ilkaha oo kaliya ma adkaynayo daamanku adkaynaya ilkaha dhaadheer maaha ilkahoo waa daamanka saddex dadka afka ka neefsada ilkahooduna way soo taagtaagan yihiin waayo sanka xidhmay sanka maxaa xidhay waxaa xidhay boorashka baastada biskidka haddii ilaahay kuu roon yahay raashinka jilicsan oo dhan marka anigu magaalaan ku dhashay aabahayo hooyaday waxay dhasheen alla naxariistay markii Ingiriisku iyo Talyaanigu waddanka haysteen deedna waxa ay ugu bilaabeen inay siiyaan raashinkii Ingiriiska iyo Talyaanigu waddanku keenay halkii ay iga siin lahaayeen raashinkii awowyaashii aabahood iyo hooyadood iyo awowyaashoodii ka hore caanihii iyo hilibkii iyo midhihii ka baxayay kaymaha marka maxay igu kaliftay waxay igu kaliftay in calaaliskaygii uu jilicsanaado waayo boorash ma calaalin karo roodhi calaalis badan uma baahna halka hilibkii deedna daankaygii baa yaraaday daamankaygi markay yaraadeen ilkahaygii wuu soo taagnaadeen talabaad oo ah dadka cadaankii waxay intii raashinkii xumaad ku siiyeen ayay haddana kugu yidhahdeen wax naga iibso bira naga iibso aad ilkaha ku xidhato waayo ilkaha taagtaagan waa foolxumo imikaan ogaaday dhowr sano ka hor baan ogaaday markii biraha ka bacdi ayaan ogaaday in ilkaha taagtaagan aanay foolxumo aanay ahayn iyaga quruxda uun ay si kaliya u haystaan ilkaha toosan oo kaliya anigu dadka qaar baan ku yidhahdaa hablaha ilkaha raaran baan jecelahay ilkaha isdul saaran yihiin qurux xaggayga aniga markaan arko gabadh qoslaysa oo ilkaheeda dul saaran maasha allah qurux dadkuna inta may bara ku marka waxaan ku odhanayaa ilkahaaga taagtaagan nina kuguma jeclaanayo gabadhina kuguma nacayso maadaama aad raashin xun cuntay oo boorashkii iyo baastadii iyo biskidkii iyo xalwadii iyo muxuu ahay waxaan calaalis u baahnayn ay daankaaga uu jilcay daankaa markuu jilcay ilkihii soo taagtaagan hayso waa qurux biro uma baahnid waxa haddii aad maskaxda aad ka xor tahay oo aan maskaxda lagaa gooyeysan ilkaha taagtaagani fool xumo maaha wax kale yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen ninkii gabadha markay isdunkanayaan waa been waxaasi
waxba kuma xidhna. Dad ilkahoodu ay toos yihiin oo aan dhunkashada aqoon baa jira. Dad ilkahoodu taagtaagan yihiin oo dhunkashada si fiican u yaqaana. Dhunkashadu iyo jacaylku waa ruuxda, maaha jirka. Jirkani waa hub qalab aad isticmaalayso un weeye. Ruuxda ayuu wax kasta ka yimaadaan. Marka ilkahaaga hayso, bira uma baahnid. Qurunka iyo wiswiska iyo huurada galaysa 4 sano ama 3 sanaad xidhantay waa inaad maalin kasta cadaydo. Cadaygu ma karayo waayo birihii baa ku xidhan raarkii. Marka uma baahnid. Talabaad qoomka soo socda la qabanayana haddii la doonayo daaminkooda adkaadana caano iyo hilib la siiyo oo boorashka iyo baastada iyo bariiska iyo waxaan biskutka iyo waxaan maalayacniga la cunayo iyo cerealka laga joojiyo si carruurtu ay u helaan ilka toosan oo dabiiciga. Taas santos leeyahay. Haddaad ilka dhaadheer leedahay, ilkahaaga dhaadheer hayso. Waa qurux. Dadkay kaa duwan tahay. Haddaad xitaa cadhaysanta waxa la moodayaa aad qoslayso. Marka hayso ilkahaaga dhaadheer. Carruurta dambe ee la qabanayana raashin fiican oo raashinkii Soomaalida ee hilibka iyo caanaha kale hala siiyo. Marka uma baahna inuu dhakhtar ilkaha tago, suus ma gelayo, ilka dhaadheerna ma yeelanayo. Taan isleeyahay waa taa. Labadaasaan isleeyahay quruxda ayay kuu sheegin. Raashin xun ayay kaa iibinin, marka dambana ayay bere kaa iibinin. Labadooda marna maalinta sale ku kaxaya. Noqo qof xora. Qof xora noqo. Ku faan sida Ilaahay kaa dhigay. Sida imika aad tahay. Waxaa laga yaabaa raashinkaaga ku bedelay markaad yarayd. Laakiin imika sidaad tahay ku faan. Ilkahaaga qosol. Ku farax. Ha lagugu caayo. Aakhira dambi baa kaaga yaaranaya. Soomaalida waan arkaa waan afka dheertay. Cadaanku way kugu caayayaan. Laakiin kalsooni baad yeelanaysaa.